diista ay barta waayo Sweden macallimidaas ardayda iyo waalidiinta ay lacag isku soo dareen waxay arkeen booyid aan darad aan keenay dadkan oo loo qeybinayo oo barakacayaasha waxay dhahdeen marka in dadkaas 100 qoys oo maaragtay in wax la gaarsiiyo deeq marka waxa la socaysiin sadaqadaas inaan rabnaa inaan bixino catooshari ku soo dhawow mukhtaar sida uu sheegay dadkan horta waa dad dhibaataysan maalin waa farxad maalin waa murugo maalin waa dhalanaysa maalin waa dhimanaysa maanta adiga waxay kaaga baa inaad soo caawiso mar haddii qiyaamaha la tago ma jirto qof u baahan dhammaan walaalaha daawanaya waxaan ka codsanaynaa xili kuleela lagu jiraa halkan waa taagnaa la'na waa u jeediin dadkan waa dad barakacayaal ah buushashkaas degan biyo haysanin baad haysanin dhar haysanin hooy haysanin qof walba maanta wixii uu ku saacidi karo inuu ku saacido qofkan waxba uu awoodo xitaa inuu sii sheergalayo maslahay waan dhabahay dadkan jikayaashooda inta waaye irid walba jikadeeda waa tasmaamadaas kale jikadeeda meeshaan ay wax ku karsadaan se ii sheegta maamada waxaan la yaabo geedkaana cunnaaye dhahday gaajaa noo geysay dhahday geedka maxaa waay maama burdhuriyaal dhahay sheegaysaa ma aqaanaani geedka waa fiifiiqnaaye dhahday waa tumanaaye dhahday sooraa ka karsanaaye dhahday waa tumanaa waa cabnaa bataatana ma aha bataat maan xidid waa anisa arkooyo xididkaas inta ay fiiqdaan ee cunaan waaye laba gaaja u geesi wajigooda ka muuqataa lugahooda u jeedin ana hadda taagan hataa dhul kuleelka soo baxay kabaheyga waa igubooyin maama ku soo dhawaa waxaan rabaa in la nooleeyo oo waan keelna dad waata geedana cunayna burneela dhulka laga soo bixinaa waxaasaan soo ka rabnaa hadii ilaahay laga helo in kaalmo idin kalena rabnaa ilaahay aan niigu duceynaynaa inoo wax kale ilaahni soo dhiibo maxaa ku cuntiin dherga lagu karana maxaa la kare oo la cuna wax kale ku cuntiin suugada lagu karama jirto suugu ma jirto wax ma jiraan sidoo biyaad cunaamo insha Allah walaalaha insha Allah ilaaha ni soo gargaarayo maxaa dhahay wax khayr qaban ilaaha ni keenayo insha Allah maama isha macallimad hodan iyo tiimkeeda asxaabteeda oo dibadda Sweden ku nool maxaa leedihiin ayada deeq igu soo talgashay u dacay yukaanu soo dhiibay waxay ni soo dhiibeen laakiin wali ma arkin hadaan ila haddana rabnaa waxina siiyaan arki doonaa insha Allah maama hodan waxay ugu soo talgashay qoyskiiba in la siiyo $20 ay ugu talgashay hadda waa ku bilaabaynaa waa siinayna ilaahay ho insha Allah qofkaas wixiisa haystaya qofkaas wixiisa haysto saane soo haysta hadda 1 2 3 4 5 6 7 waaye hadda inta bixinay hal maamo oo wadada soconina waa siinay hadda saan 8 qoys ku siinay nala socda waxaa noo soo wakiishtay hodan maxamuud oo Sweden ku nool oo aydiya tiimkeeda oo ardaydii oo ayada wax baraysay iyo waalidiinta ka soo aruurisay kadib markay aragtay dadkan dhibaatooyinka ay ku noolin walaalaha muslimiin meel walba ay joogaan waxa ka codsanayna walaalahooda inay u danqadaan adoo fog iyo adoo dhow u gargaari karta ilaahay gargaar leh insha Allah ta'ala walaalay maxaa leedahay u duceey dadkii lacagta ay soo dhiibay undaay hal ilama ilaahay walbadana barakalaysi ilaahay inka bishaaray janna amiin آمين 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 ويدعين ماموينك مامدان أيضا إن شاء الله إلهي وحيدك برينا جنات الفردوس واحد لله مامد هذا الكاديبو مركا dadka walaalaha waxaan leeyahay walaalihiina la soo ogaado garab buuxa walaalihiin ii baahan yihiin maanta ani hadaa waxeen lahay maanta waa wax walba ku tar lahay maanta waan iscelin lahay teed kale waxaan leeyahay la soo caawiyo umada walaalihiina oo dhibaateysan maamadana hadda noo bilawday daraad xasana bilaabiya loo keenay maantana maama soo dhiibta lacag waa loo keenay inta kale idinkan isku soo daysada dadka yaa la fiirinin yaa laga soconin
dadka waxa loo qabto إن شاء الله تعالى خوسس كلا أجرو دواتسن أيقنا أسيدونا بإذن الله باري هذا الله صعدا مامدان إن شاء الله مامدان ودينا ودعيني إن شاء الله وانت أي أهل السويدن واي إلى هاي نهاي واحد هاي جن فرسوس كورابي ولا يقبل والبركة لكن كويل قالنتا والديبتو ما والهورس وتعلم كويل ولا يسن لاتينو هانك هذا معلم محمود يا هواكي لدي بدن أو أصحاب أرديدي والدين العقد ها الله بركاي سد آخر الله كويل إلهي أوريس والله يكوسي والدين شو الله والسي ولا نما ولا الله كمجاي يا نان إلهي ويناي بركاي إن شاء الله بإذن الله باري مام لان كاسسي فاو جن وين تلا عجن الله فلان maamada macallima hodan iyo tiimkeeda hadda intaan 7 qof siinay oo hal qofna maamada wadada ku soo siinay insha Allah taala waa bixi doona qeybihii dambe ee nala socda waxa ku gurjinaa qeybihii kale oo dhinaa madrasatul Quwayda iyo tiimkeeda oo soo aruuray lacagtii 100 qoys in lacag la siiyo min $20 siinayna haday waxa bixinay 8 iyo hal 9 qof naga baxday haddana qeybii kala wadnaa had kuwan ilaa konton meeqa samafale konton qof waaye hadda siinayna ayaga insha Allah taala nala socda asxaabay atoosh maxaleedahay marka asxaabta oo u jeedaan dadkan dhibaatada haysato qoraxdana saa'iday u kulushahay sidoo kale intana dib weyn halka ku haysto qoysas badan waaye oo soo barakacay soo noolaal galaa biyo ma haystaan in la soo saacido qoysaska Oma قيمتها كوجنا إلى الصعدة صانع طاويها Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.